Do you solemnly swear or affirm that I will support the Constitution of the United States and to support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Ohio and the Constitution of the State of Ohio, and that I will faithfully and impartially discharge my duties as board member, and that I will faithfully and impartially discharge my duties as board member. waxaa la dhaariyay Anise Liibaan oo dhawaan ku guuleysatay inay noqoto madaxweyne ku-xigeenka Westerfield Schools. Anise waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay oo Muslim ah hagoogan isla markaana madow oo noqota madaxweyne ku-xigeenka Westerfield Schools. Talaabadani waxay noqotay mid dhiirigelisay jiilasha yaryar ee ayagu doonaya inay ku biiraan siyaasadda gobolka si kasta oo ay ugu biiraan. sidoo kaleeto Anise waxaa ka soo qayb galay dhaarteeda qaybaha kala gedisan ee bulshada oo ayagu markaasi goobjoog ka noqday habeenkan taariikhiga ah. galabta waxaan goobjoog ka nahay markhaati baan waxaan ka nahay dhaarinta Anise Liibaan oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Westerfield School Boardka. ilaahay baa ku mahadsan. aad bay farxad noogu ahayd. waqtigu waqti adag weeye oo xasaasi ah, haddana waxaan ku kalsoonahay haddii alla idmo inaynu waqtigan adag baasi doonno si fudud. laakiin waxay u baahan tahay annagoo dhammaanteen gacnaha isqabsanna, istaageera ardadeenna iyo ikhyaarteenna, ganacsatadeenna iyo dadka faamiliga si dhow loola socdo xaaladooda aynu adkaysanno. weligeen waxaan ku soo badbaadi jirnay kartideenna iyo adeegeenna iyo inaan gacmaha isqabsanno. waqtigan oo kale waqtiga loo baahan yahay qof kastoo Soomaaliga kan kale inuu gacanta qabto, soo dhaweysto, la iskaashado, lagana gudbo marxaladan adag. waan ku faraxsanahay galabta halka inaan nimaadno. Anise Liibaan waxaan leenahay hambalyo. insha Allah horey baan u socon doonaa. waxaana waa campaign wuxuu ku egyahay ilaa iyo May ilaa iyo March. marka u bixinaan leenahay hal adkayso. aad baan u mahadsantihiin. bismillaah. marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh. marka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambaliyeeyo Anise Liibaan oo maanta loo dhaariyay kursiga ay ku guuleysatay sanadkii la soo dhaafay golaha waxbarashada degmada Westerfield. run ahaantii xilli adag bay bulshada Soomaaliyeed ku jirtaa, hadday ahaan lahayd dalka Mareykanka iyo hadday ahaan lahayd dalka Soomaaliyaba. waxaan aaminsanahay waxa kaliya looga bixi karo waa isku duubni iyo wadajir. xiliyadan oo kaleeto bulshadu marka ay soo maraan waxaan aaminsanahay inay mararka qaarkood wanaag badan ku jiro oo bulshadu ay ka sii adkaato sidii ay ahaan jireenba. haddaba waxaa laga maarmaana in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolkan Ohio iyo gobolada kale Soomaalidu deganba ay mar waliba muhiimadda siiyaan sidii ay midnimada iyo wadajirka iyo hawshan sidii wadajir looga gudbi lahaa ay isaga kaashan lahaayeen. dadka mas'uuliyiinta oo ay ka mid tahay Anise ayagana waxaanu ka codsanaynaa in kuraasta ay ku fadhiyaan ee loo doorto inay bulshada Soomaaliyeed ee dooratay iyo bulshooyinka kaleba ay ugu adeegaan. marka insha Allah haddii alla yiraahdo halla adkaysto. hadee waxaan aaminsanahay in laga bixi doono haddii alla yiraahdo culayskan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa habeen aad u farxad badan oo aanu joogno Westerfield Board of Education-kii iyo winning-kii Anise Liibaan after long year of campaign aan ka wadnay Columbus iyo Seattle iyo Minnesota iyo gobolada Mareykanka oo dhan. caawa ayay soo gabagabatay ayna dhaaratay inay u adeegto bulshada Westerfield 4 sano oo soo socota. annaguna waa ku faraxsanahay. waa campaign-kii ugu horreeyay aan ka shaqeeyay 101 and lana travel grade to the overseas. marka waxaana ahayd guul soo hoyatay. waana ku mahadsantihiin dhalinyaradiina duubaysa, dhalinyarada soo abaabushay. waa idin mahadnaqayaa.